saaka aroortii hore ayaa TV-ga Saab waxa uu booqday geela barqamaalka ah oo u jira 29 kiiloomitir magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana bilahan ku soo badanayay gobolka Sool geela shirkada ah ee caanaha keena kaasoo qaabo casri ah looga soo qaado caanaha waqtigaanu ku beegnayn ayaa ah xilli loo diyaar garoobay in la liso geela inta kadib Cabdikariin Maxamed Miro oo kamid ahaa aasaasaha shirkadan geela ayaanu wax ka weydiinay arintaasi waxaana uu yiri waxaad aragtaan u jeedaan oo macnaha waxa weeye marag doonta caanaha laga lisayo iyo sidoo wax u dheeqayo dhirta uu daaqo oo kale hadaan wax ka sharaxo waxa kamid geedka daranta la yiraahdo oo nugaashu caanka ku tahay dhir kale oo geed cawsaad iyo maxaan ku yiraahdaa dhir badan buu daaqaa geelaas oo kala duwan Soomaali hadaynu hayna inaan xoolo kale oo macnaha waxa weeye xoolo kale waa leenahay laakiin xoolaha aynu leenahay geelu ugu muhiimsan yahay cid waliba ku baraarugsantahay xagga magaalada hadaan aado waxa weeye magaalada Laascaanood deegaankeedu waa xoololey haddana dadku sanadihii hore iyo xilligii hore xilli kasta ha ahaatee laguma baraarugsanay magaaladu waxa jirta oo la og yahay xoolaha ama geel ha ahaato ama adha ahaatee xoolaha caanaha xoolahooda lama manfaacadsan jirin waxa weeye magaalada dad badan baa ku nool oo jilicsan maatadii baa joogta ciyaaladii baa jooga dadkii waayeelka ahaa oo maxaan ku yiraahdaa qaar sariiraha saaran yihiin baa jooga waxa ay ku noolaan karaan oo kaliya macnaha waxa weeye marka laga yimaado de raashin la cuno aysan iyagu cuni karin waa caanaha xoolaheena laga soo liso dadkaas waxa weeye doog iyo jiilaal toon caanahaas si wanaagsan ay soo gaari jirin caanuhu laba marxaladood bay leeyihiin oo marna waa dhay marna waa dhanaan marxaladda dhanaanka baa gaari soo daaliyay la soo garaacayo waxa weeye dhanaanay oo kululaaday oo shirikaan ku soo ruxmaday baa magaalada soo gaari jiray caanaha hadda aan gacanta ku hayo magaalada waxay gelayaan 30 daqiiqo ka bacdi gaarigii hadda aan saari lahayn waa noo taagan yahay 30 daqiiqo buu nala soconayaa 30 daqiiqo ka bacdi caanaha xoorkooda aad u jeedaan oo aanu halkan ku hayno way gaarayaan maxaan ku yiraahdaa meeshii loogu talagalay iyo qofkii u baahnaa baahida qoy way gaarayaan sida loogu qabto oo macnaha waxa weeye marka caagada lagu shubayo ama shayga lagu qabto tanna waxa la yiraahdaa shaandho oo waxay ka reebaysaa wixii duulduula oo macnaha waxa weeye ama dhagax ama wax kale ah soo gaaray geela kaliya caanahan saasa nadaafadooda loo ilaaliyay waxa candhada geela laga soo lisaana waa hadhuubka sidaas loo soo lisaa Shirmaake Maxamed Shire Shirmaake Rais Saab TV Laascaanood